kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada meel walba joogtaan warka halka dhigniis qodobada ku daawa doontaan waxa kamid ah dagaal xoogan oo u dhaxeeya maleeshiyada macawisleyda iyo ciidamada Itoobiya oo ka socda xadka u dhaxeeya Hiiraan iyo Bakool khasaare xoogan ayaa la soo sheegayaa maamulka Jubbaland oo iclaamiyay weerar xoogan oo Kismaayo looga saarayo Seeraar iyo Xidig Seeraar oo ka hadlay dagaalkii Kismaayo arrin soo socotay maalmahan Somaliland oo war aan la filin ka soo saartay kulankii dhexmaray Muuse Biixi iyo madaxweyne Farmaajo Mareykanka dib u bilaabay sanado kadib taageeradii uu siin jiray ciidanka xoogga dalka iyo wasiir Cawad oo qaabilay wafdi Netherland ka socda ayaan ugu cusubtahay fadlan daawadii subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo channelkan soo gelino taariikhdu waxay tahay 13 bisha 2 Febraayo sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale oo ka dheeraada ku soo dhawaada saaxiibayaal markaana aan ku bilowno gobolka Hiiraan wararka aan ka helayna xadka u dhaxeeya gobolada Hiiraan iyo Bakool oo ka tirsan maamulada Hiirshabelle iyo Koonfur Galbeed gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Afqurun oo hoostaga deegaanka Farlibaax ee gobolka Hiiraan ayaa la sheegayaa inuu halkaas uu ka socdo dagaal xoogan dagaalkan ayaa waxa uu dhaxeeya maleeshiyada macawisleyda iyo ciidamada Itoobiya oo ka howlgala halkaasi isku horimaadka labada dhinac oo qaatay saacada ayaa geysay dhimasho iyo dhaawac fara badan hubka isku adeegsanayeen dhinacyadan ayaa waxa laga maqlayay tuulooyinka ku xeeran deegaanadan uu dagaalku ka dhacay inta la xaqiijiyay waxa dagaalkan ku dhintay 20 ka tirsan maleeshiyada macawisleyda oo halkaasi ku xogan halka ciidanka Itoobiya ay ka dhimatay ku dhawaad 15 ka tirsan ciidankooda sidoo kale waxa jira khasaare soo gaaray dad shacab ah inkastoo aan la ogeyn tirada ay gaarayaan dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ciidanka Itoobiya ay weerar xoogan ku soo qaadeen maleeshiyada macawisleyda balse wararka madax bannaan arrintan ayaa sheegaya in maleeshiyada macawisleyda ay jidka u galeen ciidamada Itoobiyaan ah oo baxsad ah kana yimid dhanka gobolka Bakool gaar ahaan deegaanka Waajid maamulka gobolka Hiiraan wali arrintan kama hadal balse xiisad xoogan ayaa halkaasi ka taagan saaka sida la soo warinayo maamulka Jubbaland ayaa cilaamiyay dagaal ka dhan ah Cabdirashiid Xidig iyo Cabdinaasir Seeraar oo sheeganaya inay yihiin madaxweynayaasha Jubbaland wasiirka warfaafinta Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ah ee Jubbaland ayaa war ka soo saaray dagaalkii shalay gelinkii dambe ka dhacay Kismaayo wasiirka ayaa sheegay in dagaalkaasi ay soo abaabushay dawladda federaalka balse ay fashiliyeen ciidanka amniga sidoo hadalka u dhigay wasiirka warfaafinta Jubbaland ayaa sheegay in dawladda federaalka ay dagaalkaasi soo abaabushay isla markaana ay ku qalqalgelinaysay nabadgelyada magaalada Kismaayo oo ay shalay gaareen xubno ka socday dawladda Mareykanka oo hogaaminayay safiirka u jooga Muqdisho Donald Yamamoto iyo taliyaha ciidanka Africom sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in xogta abaabulka dagaalkan ay hore u ogaayeen isla markaana ay u diyaar garoobeen sidaasna ay iskaga caabiyeen iyadoo aysan gaarin wax khasaare ah sida uu sheegay sidoo kale ma sheegin wasiirka wax khasaare ah oo dagaalkaasi ay ku gaarsiiyeen garab ka taabacsan Cabdinaasir Seeraar balse inta la xaqiijiyay waxa dagaalka ku dhaawacmay ku dhawaad 7 qof oo iskugu jira shacab iyo dhinacyadii dagaalamay waxaana jira sida la sheegay dhimasho inkastoo aan xogteeda lahayn wasiirka warfaafinta Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed ayaa ku doodayay in dulqaadkii uu maamulkaasi u hayay xubnaha mucaaradka ah uu dhamaaday wixii haatan ka dambeeyana aan la isla joogi doonin magaalada Kismaayo sida uu sheegay wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay safarkii Kismaayo ku tageen taliyaha howlgalka Africom iyo safiirka Mareykanka oo fadhiya Muqdisho iyo Yamamoto dhinaca kale Cabdinaasir Seeraar oo hore u soo noqday afhayeenka Jubbaland balse haatan sheeganaya madaxweynaha Jubbaland ayaa ka hadlay dagaalkii maanta ciidamada taabacsan iyo kuwa Jubbaland ku dhexmaray Kismaayo Cabdinaasir Seeraar oo garab ku sugan Kismaayo ay u doorteen madaxweynaha Jubbaland ayaa ka hadlay dagaalkii isaga ciidamada taabacsan iyo kuwa Jubbaland ku dhexmaray xaafad ka mid ah magaalada Kismaayo Seeraar ayaa sheegay in Axmed Madoobe maalmihii dhawaa ku guudinayay in dulqaadkii ka dhamaaday magaaladan aysan wada joogi doonin qolo siyaasad ahaan ka soo horjeeda shalayna uu dagaalkan soo abaabulay sidoo hadalka u dhigay Seeraar oo u waramay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay in lagu soo weeraray guri uu ka degan yahay magaalada Kismaayo gaaraan xaafadda Siinay isagoo xusay in magaalada bandu ay ahayd Seeraar ayaa sheegay ujeedka Kismaayo uu joogo uu yahay doorasho xalaal ah halkaas lagu qabto isagoo madaxweyne Axmed Madoobe ku eedeeyay si uu u burburiyay rabitaankooda inuu u adeegsanayo awood taasna aysan aqbali doonin sidoo hadalka u dhigay aniga cid awood nagu maquunin karta ma jirto Axmed Madoobe in isaga dana gaar ah
ku gaara ayuu rabaa in dadkan la isku laayo. Waxaan uga digayaa falalkan uu sameynayo. Wanaagu hadduu wax tari waayey inaguna qaab loola tacaamulo waa naqaanaa, ayuu hadalkiisa sii raaciyey Seraar. Ugu dambeyntii Seraar waxa uu sheegay in dagaalkii shalay joojintiisa ay ka qayb qaateen isaga iyo odayaal kale, khasaaraha ka dhashayna aan weli wax qiimeyn ahaan lagu sameyn. Khilaafka u dhexeeya dowladda iyo maamulkan uu majaraha u haya Axmed Madoobe maalinba maalinta ka dambeeyda waxay tahay mid ka sii dareysa. Shalay Kismaayo waxaa gaaray wafdi heer sare oo ka socday beesha caalamka uuna hogaaminayay safiirka Mareykanka, waxaana wafdiga ka mid ahaa taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika u qaabilsan, magacoodana loo yaqaan Africom. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Jubbaland, Danjiraha iyo Axmed Madoobe ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda ka taagan gobolka Gedo iyo duulaanka gardarrada ah ee dowladda federaalka ay ku qaaday deegaano nabdoon, kuwaas oo tan iyo xilliga dowladdu ay halkaasi weerarka ku qaaday ay ka jirto xaalad adag. Qoraalka Jubbaland ayaa intaas ku daray waxa la isku raacay in dowladda ay halkaasi kala baxdo ciidamadii ay geysay, kuwaas oo kala dhantaalay nidaamkii maamul ee halkaasi ka jiray, sidoo kalena qalqal amni darro ka abuuray gobolka Gedo. Jubbaland ayaa sidoo kale sheegtay in Axmed Madoobe iyo wafdiga Mareykanka ay ka wada hadleen sidii xal looga gaari lahaa khilaafka u dhexeeya dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka. Dhinaca kale, Axmed Madoobe ayaa kulan gaara la qaatay taliyaha ciidamada Mareykanka u qaabilsan Afrika, magacoodana loo yaqaan Africom, General Stephen, waxaana looga hadlay kulankaas sida la sheegay howlgal mideysan oo Al-Shabaab looga saaray deegaanada ay kaga sugan yihiin Jubbaland. Howlgalkaas ayaa sida la sheegay waxaa si wada jira u fulinaya ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland, ciidamada xoogga dalka iyo AMISOM oo taageerayaan howlgalka Africom ee Mareykanka. Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho weli wax rasmi ah kama soo saarin socdaalka Danjire Yamamoto Kismaayo ku tagay. Maamulka Somaliland ayaa war ka soo saaray kulankii Farmaajo iyo Muuse Biixi Addis Ababa ku dhex maray. Xukuumadda Somaliland ayaa ka hadashay markii ugu horeysay kulan maalin ka hor xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya ku dhex maray madaxweyne Muuse Biixi iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Somaliland ayaa sheegtay in kulankaasi oo san ahayn mid quseeya wada hadallada labada dhinac oo sanadihii u dambeeyay u muuqday kuwa lagu fashilmay in dib loo furo. Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland oo arrintaasi ka hadlayay ayaa ka dhawaajiyay in kulankaasi oo ahaa mid ismaac salaameyn kaliya maadaama uu dhammaaday shirkii madaxda Midowga Afrika. Wasiirka ayaa faahfaahin badan ka bixin waxyaabaha lagaga wada hadlay kulankaasi, wuxuuna yiri markii uu dhammaaday shirka madaxda Midowga Afrika, madaxdii ka qayb gashay oo dhan ayaa ismaac salaameynayay. Madaxweyne Farmaajona halkaas ayuu yimid, sidaas ayayna ku kulmeen labada madaxweyne. Warkuna intaas dhan ayuu yahay. Madaxweynaha Somaliland ayaa galabnimadii Axadda u dhoofay magaalada Addis Ababa xilli halkaas oo ku sugnaayeen madaxda Midowga Afrika uu ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo. Kulanka Muuse Biixi iyo Farmaajo ayaa la aaminsan yahay inuu ahaa mid hore u sii qorsheysnaa oo ka soo shaqeeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo Farmaajo saaxiib dhow la ah, inkastoo aan la ogeyn waxa uu ka tari doono xiisadda ka dhex caloosan dowladda federaalka iyo Somaliland. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa qoraal kooban ka soo saartay kaliya in kulan uu dhacay, ugana mahad celisay ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuu soo agaasimay, mana bixin wax faahfaahin ah intaasi dheer. Mareykanka ayaa markii ugu horeysay sanado kadib dib u bilaabay kaalmadii militari oo siin jiray Soomaaliya. Dowladda Mareykanka ayaa shaacisay inay isbuucan dib u bilowday kaalmadii militari ay siin jirtay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya si u taageerto howlgallada la dagaalanka argagixisada ee ka socda gobolka Shabeellada Hoose. War saxaafadeed ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa lagu sheegay in go'aankaasi Mareykanka uu qaatay kadib markii ay korortay kalsoonidii dowladda USA ku qabtay hanaanka maamulka dhaqaalaha ee dowladda Soomaaliya. Safaaradda ayaa sheegtay in Mareykanka uu sii wadi doono taageeradaasi dhaqaale oo ah mid ku kooban kaliya la dagaalanka argagixisada. War saxaafadeedka ayaa ugu dambeyntii lagu sheegay in dib u heshiisiinta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah muhiim u tahay hirgelinta dowlad xoogan oo ammaan ka hanan karta iyo barwaaqo ay hiigso doonaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Daawadayaal waa naga intaa warkaad kala socoteen Halkudhig News.